بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إن أبورتي أيا إنو شيغي إنو شيدانكو ونفتين عدو كيهي شيدانكو وحكوها ولن يهي سيدي وقي مريد لها بالذي إلهي بن آدم كسيي إيو إبليسنا كما صيري ونكرا مريد لها حدبا محيط هاي باللداس إبليس كما صيري إلهي سبحانه وتعالى وكو كراميي آدم إيا أولاديستا إلى مانتنا وإبليس كسمر لا يهي إسلام كان إلهي بلان كلا قلي إنه قيامها إمان دونو إساقو بلا آدم كتوري بلداس وأي كرامداس إياقو قعنتو دا إساقو حوري دونان أبورستي إلهي سبحانه وتعالى إيو أبوري آبه النبي الله آدم وحي ملائكتو ويديسي إلهي ربك يغو قلك موحدكو أبوريسا قار ليك كداديا إلهي سبحانه وتعالى waxa ugu jawaabay malaa'igtiisa ma ogaan kartaan xikmadan u abuuray aadam ilaahay subhanahu wa ta'ala malaa'igtiisa wuxuu tusay karaamada uu leeyahay aadam iyo wixii takfiirtiisa ahba markii ilaahay nabiyullaahi aadam uu ku afuufay ruuxda ayuu ilaahay tusay malaa'igtiisa garaadka iyo garashada aqooneed ee uu ilaahay ku abuuray aadam bini aadamku noolayaasha kale ee ilaahay abuuray wuxuu kaga fadli badan yahay garaadka iyo aqliga taasoo uu ku kala garanayo wax kasta oo ilaahay abuuray aadam hortii iyo dabadiiba iblis oo markaa ka mid ahaa malaa'igta isla markaana ahaan jiray mid saalix ah oo wanaagsan ayaa ka masayray garaadkii iyo garashada aqliga ee ilaahay nabiyullaahi aadam ku manaystay amarkii ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee ahaa u sujuuda nabiyullaahi aadamna uu iblis halkaa ku diiday isla markaana sidaa uu iblis ilaahay agtiisa kaga fogaaday iblis wuxuu ilaahay ballan kula galay inuu maalinta qiyaamo iman doono isagoo qiimo tiray bilada karaamaysan ee garaadka iyo aqliga ee bini aadamku dheer yahay noolayaasha kale ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu abuuray halkaas ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu dhaartay iblis iyo wixii raacaba inay naarta gali doonaan daawade in yar qiimee shaydaanku waxyaabaha uu bini aadamku ku riixo isla markaana uu kaga dhigo inta raacda qaar dulaysan wax kasta oo la isu sheego ama la soo bandhigo waqtiyadan casriga ah waxa ka hara muuqaalo kooban kuwaasoo indhaha bini aadamka caddayn u ah makhraatina aan u baahnayn waxaanu soo qaadanaynaa dhowr qodob oo kooban oo adduunyada ka dhacay kuwaas oo uu iblis ku duleeyay garaadka bini aadamka isla markaana uu biladii karaamaysnayd ee aqliga uu kaga dhigay mid liidata daawade waxa laga yaabaa inaad qodobadan aad hore u soo aragtay hase yeeshee aanu aqligeenu rogrogin isla markaana aynu qunyar iska dhaafnay oo aynu wax qiimo ahba oo aynu ka soo qaadnay waxaan sidaa u sii weynayn ilaahay subxaanahu wa ta'ala bini aadamkiisa wuu jecel yahay mar kasta oo uu nabi u soo dirana dadka wuxuu uga digi jiray khatarta shaydaanka iyo inuu noloshooda karaamo ridayo daawada xayawaanada kala duwan ee dhulka inagula nool iyo makhluuqaadka kale ee ilaahay abuurayba ilaahay wuxuu inoo sheegay inay bini aadamku u adeegayaan oo qaabab kala duwan uu bini aadamku uga faa'iideysan karo xayawaanadaasi ma laha aqli ama garaad ay ku kala gartaan xumaha iyo samaha nolol cusubna ku hindisaan haddana iyagoo aan aqli lahayn way garanayaan sidii ilaahay u abuuray inay u dhaqmaan arki maysid xayawaan yar oo naaska jaqaya oo intuu hoos galay xayawaanada labka ah isla markaana moodaya hooyadii uu naaska ka jaqi jiray arki maysid neef lab ah oo damac uu ka gelayo neef kale oo noociisa ah oo lab ah wuxuu garanayaa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu abuuray lab iyo dhadig isla markaana damci maayo xayawaan kale oo aan xayawaanka ilaahay u abuuray ahayn daawade iblis si uu kuu duleeyo ama kuu karaamo rido oo aqliga iyo garaadka ilaahay kugu sharfay ee iblisna ka masayray uu meesha uga saaro wuxuu bini aadamka ku dhiirigeliyaa xumaan kasta oo ay ka baydheen xayawaanku maanta adduunyadu waxay maraysaa in la xalaashado galmada dadka isku jinsiga ah taas oo xayawaanka bila aqliga ahi uu gartay inaan ilaahayba u abuurin ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu quraanka inoogu sheegay in uu bini aadamku u abuuray una sameeyay suuraddii ama muuqaalkii ugu wanaagsanaa gaalada dabadhilifka u ah shaydaanka ee dadkana ku indhasarcaadiye hawaayiga adduunyo waxay dadka ku kala doortaan lacag iyo magacna ugu yeelaan hadba sida uu qofku isu duleeyo uguna dhiirado wax kasta oo xumaan ah bal eeg dunida maanta nolosha adduunyada waxaad arkaysaa dad badan oo beddelaya qaabkii quruxda badnaa
ee ilaahay u abuuray dadkaas oo ibliis markay raaceen uu addoonsaday isla markaana tusay inay ka liitaan xayawaanka dadkaas oo intay jidhkooda ku sameeyaan qalliin qofba wixii uu ibliis u qurxiyey isu beddelaya waxaad kaloo adduunyada ku arkaysaa dad markii ay ibliis raaceen uu shayddaanku u qurxiyey isla markaana ku dhiirigeliyey inay nolol la wadaagaan xayawaanada sida eyda iyo wixii la midka ah taasoo xayawaankuba uu ka siqsiiqo kana xaragoodo arki maysid xayawaan damac uu ka gelayo xayawaan aanay isku nooc ahayn tani miyaanay ahayn dulayn iyo karaamarritii u darnayd ibliis iyo shayddaamadiisa la jiraa hadday wanaag iyo sharaf leeyihiin may fadhiyeen goobaha xunxun ee bini'aadamku uu ku qobo wixii qashin ah ee ka soo hadha iyo musqulaha uu bini'aadamku ku xaajo gutada adduunyada maanta jirta waxaa lagu tartamayaa hindisaha horumarineed ma jirto cid isweyddiisay oo tidhaahda bini'aadamka mooye maxay noolayaasha kale u gaari waayeen horumar taasi waxay tusaale u tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala bini'aadamkiisa inuu ku karaameeyey caqli iyo garaad rogroga xaaladda nololeed ee taagan isla markaana ku hindisa wixii markaa la tebayo ama loo baahan yahay daawade waxaan filayaa inaad wax badan ila fahamtay sababtoo ah muuqaalkeennani waa muuqaal aynu qaab kale oo bini'aadamku wax u fahmi karo ugu soo gudbinay wixii xaqa ah ee ilaahay ina faray iyo cadowgeenna daran ee maalin kasta ina daba taaganba muuqaalkani waxa uu ka mid yahay barnaamijka nolosha tolmoon waxaana idinla socodsiinayaa anigoo mukhtaar maxamed diiriya ah mukhtaar jambaq haddaba daawade sidii caadada inoo ahayd muuqaalka like saar haddaad channelka ku cusub tahayna subscribe ku qabo dawankana furo wixii talo iyo tusaale ah ee aad nagu soo kordhin kartana kommentiga hoose noogu reeb mahadsanid intaynu warbixintan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa ammaano allah حسبنا الله ونعم الوكيل